مساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم ولا الله الصوماليد ملت جوجتان بإله سبحانه وتعالى إذا ما يلو عدي دبنبك الله كقاضو عدي دن له وفي انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دبتي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستو أننا الله نوغدب نحرستو دالك دينتا دادك يدولدني مدبا إله سبحانه وتعالى هينو بدبادي ما انتو حكال لنا لبا قضب كوات فيلا الصومالية أو شركي وكوكب صومي كلمة كورنية قضب كلابات فيديوهات تربضان أو صوب حياة كهد ليا بليع دا يقروح دا ودن كا يدنا كلمة كورنية فيلا الصومالية والغو الشري فيلا الصومالية وكرامية شرف وح مشكلة هو دعينا مجنان وكما هتسيها مدحوينه إنه بشكريي أو ريحي waxaa kaloo mahadsan cidda shirka aqbashay oo ogolaatay madaxweynaha iyo dalka inaan karaamada laga qaadin madaxweynaha wali xilkiisii waa jiraa muddo xileedkiisii buu ku jiraa 3 bilood baa u haray marka in villada lagu shiraa meel kasto kale ka qurux badan marka symbolic wadanka guud marka la eego iyo kursiga madaxweynenimada arintaas sharaf weey waxaa nasiib darro ah madaxweynuhu markii la gaaray xilligii qadada in jeebka ay kala soo baxaan raggii meesha fadhiyay oo dhan nin walba qadadiisu jeebka kala soo baxo waa tactic xasan alifay yacni god walaalka ha qodin ku dhici doontaa haddaad qodidna ha dheerayn ku dhici doontaana ma ogida waa mahmaha soomaaliya wixii ma garanaysaa luqadda ingiriiskana waxa la yidhaha what goes around comes around wixii adigu aa sii daysid oo dirtid baa kuu soo laabta mawjada haddaa dhagax cirka u tuurtid dee dhagax unbaa kuu soo noqonaya madaxweynuhu isagaa ku sameeyey madaxweynihii ka horreeyey ficilkan foosha xun isaga iyo tiimkiisaan hadda hor fadhiya waa isla tiimkii xilligii teendhada lagu shirayay la soo bixi jiray qadadooda ama dhihi jiray waa soomannaha biyahooda xataa watay mawjada waa nasiib daro waa dal gebigiisuba indhala nin waxaa jirta qiso nin indhala baa waxaa hogaamiya nin indha qaba ninkaasi marka waa ku tugsadaa ninkan indhahala magaaladuu la maraa lacag buu ururiyaa lacagtaas cuntuu ka siiyaa ninkan waxa kale isagaa isticmaala oo jeebkiisa ku rita waana ku bulaalay oo lacag buu ka dhargi ilaa ninkan indhahala baa laga naxaya lacag baa la siinaya maalintii dambe dadkii iyo reerkii iyo qoyskii ninka indhahala ka dhashay waxay yidhahdeen ninkan indhaha loo fiiqayaa ninka hogaamin jiray meel laga galaa la waayo waa exactly dhibka haysta Soomaaliya dal karaamo iyo sharaf leh amni kaliya u baahan 200 nin oo ma garanaysaa mushkilaysan oo madargayaala oo kulligood jiib ah oo aad u hooseeya xagga hanka aad u hooseeya lacag un raadinaya wax ka fog iyo bigger picture sawirka guud aan arki karin war Soomaaliya wada hagaagtaa adiga iyo awlaadaada iyo awlaadooda iyo mustaqbalka soo socda u fiican oo uga fiican in adigu jeebkaagu lacag ka buuxsamo taasa u fiican niman garan karin waa ninka hogaamiye ninka dhulku isla dhacay oo hirsaa ku dhici kartaa ninka hadii indhaha loo fiiqo maxaan ka shaqaynaynaa aragtida ay ku shaqeeyaan waa intaa waxaa laga dooday doorashadii waxaa maqlaynaa in laga heshiiyey oo lagu heshiiyey in doorashadii madaxweynuhu dhulka dhigo waa ogaanaynaa meesha ku dambayso laakiin waa guul weli waxay taagan tahay hadalkii dekaale bay weli taagan tahay doorashada dhexdaan dhigaya laakiin moodalkii doorashada lagu geli lahaa baan weli la isku raacin waxaa laga dooday maamul goboleedyadu doorashaha qabsadeen 3 ah oo aan doorashada qabsan sanad iyo bar ilaa 2 sano la soo dhaafay muddo xiloodkoodii dhammaaday ku jooga ilaa mandate laan ku jooga madaxweynuhuna mas-uul ka yahay unilateral keligiis uu yiraahdo idin kordhiyo muddada iska jooga iyaguna iska joogeen dadkii shacabka ahaa ee meesha deganaa gobolada deganaana aysan ka dhiidhiin arrintaas oo aanay diidin oo aqbaleen wuxuu yiri madaxweynuhu doorashan ka qabanaya wuxuu rabaa inuu iskaga lifaaqo oo lagala shaqeeyo kuwaanu ay aqbalaan oo maxaa kuwan ka galay inuu iskaga lifaaqo midii deegaamada oo city councilada degmooyinka iyo tuulooyinka maamuli lahaa iyo meeyaradii inuu ku dhex qariyo
xildhibaanadii federaalka ahaa ee doorashada dadban dooran doonay madaxweynaha ee teendhada tegi lahaa inuu isagu la soo baxo saddexda gobolba caqliyadaasuu wataa madaxweynuhu waxaa lagu yidhi maya toodii dadbanayd bay aadayaan isaguna wuxuu yidhi halayga daaya taa moodal kalaan ka wada fakaraynaa waa ka tashanaynaa malugjiidkiiba oo wuxuu rabaa waqtigu inuu ku dhammaado maalin walba inta laysu yimaado waa isu soo noqonaynaa waa ka tashan doonaa waa isu soo noqonaynaa waa ka tashan doonaa lugjiidkii naloo ka sheegay madaxweynaha ilaa may inuu gaarsiinayo miyaa mise daacad bay ka tahay ilaahay waxaan ka barya inuu daacad ka dhigo dadkoo dhanna waxaan leeyahay ramadaan baa lagu jiraaye ilaahay barya laba arrimoodba inuu sameeyo inuu dalka roob ka di'iyo ilaahay subxaana wa tacaala ummadda raxmad u shubo iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuwaas ilaahay taladeeni gacanta u geliyey inay ku heshiiyaan dalka meesha dhaanta in loo kaxeeyo kelmadda intaasan ka oranaya kelmadda labaad qodobka labaad waxaan arkayaa fiidiyoyo isdaba socda oo ilaa jubbada hoose meesha ugu shishaysa ilaa lughaya dhallinyara kasoo duubayso dibadaha ka yimi oo si fiican fiidiyoyo macnale u duubaya qaar badan waxaa ka hadlaysan video bay duubayaan wax xog ah iyo wax hadala oo ku jira ma jiro music bay saarayaan waa useless cid wax ka fahmaysa oo ka faa'idaysan meelay tahay lama yaqaan wax hal qoraala ku qoran waa magaalo hebla qaarkood si fiican oo macnale sida ninka la yiraahdo xaaji dir iyo niman dhalinyaro ah oo kale nimankaasi si fiican oo macno leh ayay u soo duubeen fiidiyoyo sharaf leh oo ka hadlaya taariikhda magaalada macnaha magaalada qiimaha magaalada barwaaqada agtaala tuuladaas maxaan ku irahdaa buuraha xataa waxaan aragnay dekado ilaahay dabiiciya oo u baahan keliya in la qorqoro hoos loo qodo la dheereeyo godka si marka hoos u qodanoo meel fog gaaraya uu ugu soo xiran karo keliya u baahan iyo laami in loo falo lacagtaa ay siyaasiyiintaasi boobayaan oo aysan weligood ka dhargeyn kana barwaaqoobeyn lacagtaa iyada abaa u baahan dhulka in lagu dhiso oo laamiya loo dhiso oo magaalooyinkaas ay waxaan arkay magaalo la yidhi meesha keliya u furan waa badda waxay laba gaari baa la keenay magaaladan labada gaari magaalada un bay dhex joogi karaan meel kale ma aadi karaan markii horena doon baa lagu keenay ma ujeeda magaaladaas in waddo loo falo bay u baahan tahay waxaan arkay oo kale biyo dhacaya oo saa u shubmaya meelo ay webi biyo macaana iyo biyihii badda ay isgarab socdaan biyihii macaanaa oo ayl iyo murcanyo badda ku darmaya baan aragnay waxaa loo baahan yahay in xal loo helo magaalooyinkaas biyaha daadanaya ka dhaansanaya caaga ku dhaansanaya all they need 100 kun lacag ka yar baa lagu maalgelin karaa waxaa loo gelin karaa tuubo solar yar la saaro oo diiniba lagu rakibo oo biyahaas ay haan ku shubmaan kore kadibna ay tuubooyinka raacaan oo dadka guryahooda ugu tagaan khalaas lacag biyo firiya ay ku helaan iyagoo gurigooda jooga meeshay caagad kusoo dhaansan lahaayeen intaasi u baahan waxaa arkaysaa mooskii iyo saytuunkii iyo liintii iyo barwaaqadii dalkeenu caanka ku ahaa oo kasoo wada baxaysa buurahaas iyo baadiyahaas kasoo wada baxaysa waxaan la heli karin oo barwaaqaaba ka muuqata dahabka iyo luulka iyo iska dhilow gaaladaana ay guranayso oo ay guranayaan imaaraadka iyo balaayada imaaraadkaasu intuu lacag ka sameeyey soomaaliya ilaahay unbaa qiyaasi kara siyaasigana wax yar oo aan macno lahayn oo uu ama doorasho ku iibsado ama uu xoogaa business ku maalgashado baa la siiyey oo loo daadiyey dib u jeensaana la tagtay dhalinyaradaas waxaan ugu baaqayaa fiidiyoyada si fiicanna u duuba xog fiicanna ku shuba oo waxaa sheegtaan waxa aad duubaysaan waxa uu yahay dadka dibadaha jira meelahaas haddii ay dib ugu laabtaan oo ku noqdaan shabaabyadan iyo musiibooyinkan israa'iil iyo ay wataan na meesha laga saaro al-shabaab iyo israa'iil waa isleeyihiin ogaada qatar ra-iisul wasaaraheedii markuu Tucker Carlson waraysiga siiyey ciddii qanci weyday iyaday u taallaa qarax buu sii daayay israa'iil iyo maraykanka ayaa samaysta argagixisada caalamiga ah oo dhan iyagaa iskale iiraan bay ku maagayaan kadib weeye iyagaa samaysta qatar waxay sheegtay inay iyagu u keensadeen nimanka la jooga oo argagixisada iyagu keeneen oo iyagu maalgeliyaan oo Netanyahu lacagta ugu badan ku bixiyo ISIS iyagaa samaystay iyagaa tababartay waxaa sameeyey Netanyahu baa sameeyey kadib markay ku qabsadeen Ciraaqna waa burburiyeen oo waa tuureen oo ay waxay Ciraaq iyo Syria meel ku baabasheen bay iyagiina ka takhaluseen
and that's what they do. هذا waxa qaylinayeen Israa'iil iyo qaylinayaan arkay muxuu ka qaylinaya wixii Turki waa Iiraantii labaad waxa samaysmay wiir Turki iyo nuclear power wadan ah oo Pakistan la yiraahdo Qatar Saudi Arabia oo ah labadooduba lacagtii dhaqaalaha adduunka oo dhan iyo Egypt oo ah ciidan aad u tiro badan iyo dad tiro badan oo population badan haysata mawjeeda oo tababaran saraakiil iyo askar aad u tababaran leh baash baa midoobay gaashaanbuurtaasi khatar bay ku tahay Israa'iil waxay arkeen fiidiyoyadan soo baxay Soomaaliyaanu degaynaa Soomaaliyaanu xeebaheeda sukuur garaynaynaa Soomaaliyaanu khayraadkeeda soo saaraynaa qaracan bay u baqtiyeen waxa ciyaalada qeyrqeylinayo Facebookyada iyo ka soo qeylinayo YouTube-yada xoogaa lacag u daadiyaan oo Israa'iil u doodaya hada arkaysaa nin Soomaaliya oo Yahuud u doodaya maxaa ka khaldan dadka ee dhageysanaya markaad aragtid inuu Israa'iil difaacayo iyo Imaaraad markiiba waa inaad ka hartaa tiraahdaa mujrim baad hadda Turki waxaana lagu sheegayaa waa gumaysi waa cadow waa soo duulay waa ina qabsanaya fake news barwaaqo ka dhargaya percentage kala siiyay baa ku filan oo ka badan adna barwaaqaad ka dhargaysa xoog baa u baahan tahay intaan ageena ku istaagayno ciidamadeennuna ay dalka qabsanayaan lana wareegayaan awoodda iyo maamulka iyo difaaca dalka waxaan u baahannahay cidna taageerto walaal ah dadkaas marka soo gurmaday oo danahooda iyo kuweenu iswaafaqeen aan ka faa'iideysano jaanisku marbu ku soo maraa waa qof lacag haysta iyo qof xirfad yaqaan oo intay isu yimaadeen uu yiri war lacagta idii baan ku shaqeeyay lacag baan ka soo saarayaa faa'iidadana waa qaybsanaynaa hadduu yeelo dee labaduba waa baraarayaan hadduu diidana labaduba midna lacagtiisu iska haysanaya waxba ugu darmimayaan kan kalena waa shaqo la'aan iyo xirfadiisu iska haysanaya laakiin caqligaa la rabaa inuu shaqeeyo maanku ha taliyo maskaxdana ha la shiilo dadka dibadaha jooga way maal gashan lahayn guriyay ka dhisan lahayn deegaanay ka samaysan waxaa laga samayn karaa meelaha qaarkood hoteelo dalxiis caalamku markay arkeen waaba qaracmeenba garbage bay lahayn war Soomaaliya garbage maaha baa hadda meel walba wareegaysa maxaa yeelay waxaan lama soo bandhigin marna lama tusin dowladuhu waa qarinaya Soomaaliya oo dhan inay barwaaqo tahay gees ilaa gees baa soo baxday meel abaaraba aysan jirin meel walba ay barwaaqo tahay nicmana taalo waa la yaaban yahay hoteelo 7 star laga furi karaa millions of dollars baa laga samayn karaa kaliya waxa loo baahan airport yar baa loo sameeyaa dekedaha ka wada samaysmaya meel walba deked bay yeelanaysaa meel walbana airport bay yeelanaysaa meel walbana ruudad dibadaha ka soo galo international airport baa ka samaysmaya mawjada marka barwaaqa loo dhacayaa aqligu ha taliyo dhalinyarada loo baahan yahay qabsata oo la wareegta caalamka kuwa wax duubaya 75% iyo ka badan dadka Soomaaliya ku nool ama Soomaalida ah waa dad dhalinyaro 50 sano ka yar waa dadka loo baahan yahay qabsadaan hoggaanka iyo maamulka iyo talada khayr badan baa idin rajeynaya insha Allah taala waa ka baxaynaa barwaaqana u gudbaynaa dadka dhageysanaya dhamaantood maadaama ay Ramadaan tahay laba arrimood ba Ilaahay ka barya inuu Ilaahay roob daadiyo ummadda faqriga iyo gaajada ka qaado meelahaas biyaha leh oo fiidiyoyada soo saarayaan dadku ha aadeen dadka reer miyigaana waxaan kula talinayaa dee ha sugin ilaa naftu kaa dhacda gaajo markaa aragtid haraad iyo gaajeen xoolaha ha ku agbaqtiine xoolaha inta ka haysid meel magaalo ama tuulo ah meesha kuugu dhow gee tuulada iska ag joogeen iyagu ha baqtiyeen oo gaajo u baqtiyeen marka adigu baqtiyeen ama caruurtu ka baqtiyeen ma ujeeda daaq male yeelkeed iyo daaq laha waxay cunaan way helayaan badar baaba la siin doonaa dadka idin gurmanaya laakiin magaalada taga oo biyo cabba at least oo cunto cuna dadka Ilaahay loo bariyo roob inuu u diiyo abaartana ka qaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka weydiisanaynaa inuu roob caama Soomaaliya oo dhan ka shubo abaarahana ka dulqaado qodobka labaad nimankaas